waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahiya oo igu tallaahiya ninkan aad u jeedaan inta uu ka raali gelinayo gabdhihii Soomaaliyeed ee everyday uu jaaifada iyo aflagaadada iyo deelqaafka iyo cayda uu u geysan jiray oo ay waliba ugu horeyso gabadhii miskiinta ahayd ee xijaabnayd ee gabdhaha dhiirigelinta iyo khayrka la wadaagi jirtay Mareykanka iyo Ingiriiska midkood joogta cid ay Soomaali ka tahay kuma garanayo oo ay gabadhaas ugu horeyso inta uu ka raali gelinayo intuu halkan soo fadhiisto sida nin raga uu dhahayo war gabdhow iga raali noqda inaanan ka deyneynin sidan aan maanta u soo qabteen halka ugu soo dhigoon baan ugu soo dhigi khalad walba cid uu ka galay ee Yurub joogtana anaa looyarkooda qababa intaan wax kale la gaadhin looyarkooda anaa qaba iga qora hadalkaas inaanan ka deyneynin buu Ilaahay igu ogyahay intuu gabdhaha masaakiinta ka raali gelinayo dadka ii soo qoraya wiilkan waa wiil sheekhaal waa wiil sidana waraawad dhaqan xuntiin aan wax idin sheego sheekhaal anigu ma aaminsan inay wiilkan soo dirsadeen oo ay ku dhaheen gabdhaha Soomaaliyeed aflagaadee sheekhaal anigu ma aaminsan inay raali ka yihiin wiil magacooda wataa inuu gabdhaha aflagaadeeyo ninkan markuu gabdhaha aflagaadeynayo maad qabataan marka intuu halkan soo fadhiisto gabadh sheekhada oo miskiina uu leeyahay nin bay jirkeedii hadiyad ahaan u siisay iyadoo waliba raali ku ah markaasay 30,000 euro oo ugu dartay deelqaaf ka xun miyaa jira gabadh miskiin oo xataa hadalkeeda shigshigaysa markay hadlayso oo af Soomaali ku filan xataa oo ninkan iskaga hadasho aan garanayn markuu gabdhaha saa u aflagaadeynayo leeyahay shaadiya sharaf baa istiin la galiyo il bay ka ilmeynaysaa iyadoo la istiiminayo gabadh la qabo oo xaas oo ilmale uu saaleeyay ma magaca sheekhaal buu ku duulayaa waa mayade marka dhaqan xumo yeena isula iimaanin meeshan reer laguma dhiso reerna laguma dumiyo wiilkan dhaqan xumada uu sameeyay iyo beenta uu sameeyay waa tan maalinka maanta taagan nin dhalinyara oo mustaqbal leh oo waalid leh oo family leh oo muslina baa wuxuu ku sheegayaa inuu qoomuluud yahay ma reer buu matala marka waayay anu waan idin sheegay waxa doontaan soo qora waa sheekhaal waa adag waxa doontaan soo qora aniga Cabdixakiin qalan baa leedahay meesha aan ku dhago waa la ii fujiyaa isagoo adduunka dhan uu iga soo horjeedo qabiil dhan haduu doono dawladdan ay eeryanayso hadaan meel ku dhago aniga meesha waa la ii fujiyaaba taliya MB waxaan diyaar u lahay in lacagta looyarka ugu qaalisan Sweden haduu xataa qabsado inaan wax ka bixiyo haduu sida raggeedii laakiin halkan intuu soo fadhiisto uu yiraahdo war wax ma idin sheegaha khaladaadkaasaan galay khaladaadka uu galay qof Soomaaliya oo galay ma jirto haba yaraatee intuu halkan social media intaan isticmaalayni wali ma aanan aragnin caada ka dhigta dumarka Soomaaliyeed inuu aflagaadeeyo gabdhaha la qabo inuu aflagaadeeyo war ummadii Soomaaliyeed oo dhan baa khaatiyaan taagan war dadkii Soomaaliyeed oo dhan baa yaab hadalka anu waan soo gabagabeynayaa TikTok iyo sheekadu waa iskala tagaysaa inaan TikTok dhanba aaban ka dhaxbaxo ninkaana dumarka Soomaaliyeed aan meel ka saaro waxa igala muhiimsan inaan isaga dumarka Soomaaliyeed meel ka saaro si sharciyeysan sifa sharciyeysan duni sharci ka shaqeynaya la jooga haddii maanta intuu ninkaasi soo fadhiisto khaladaadkan uu galay uu raali gelin ka bixiyo allihii in uu wayba dadka toobu u baneeyay oo intay khalad galaan buu ay haddana tooba la yimaadaan uu ka aqbalaa toobada bini aadam baan nawranahay hadduu intuu halkan soo fadhiisto uu yiraahdo warniyo waan khaldamay anigu faataxo sheekadu halkaas ay ku dhamaatay laakiin hadduu ku sii cadcad yahay gabdhihii uu aflagaadeynayay everyday tan maanta taaganay beenta inta la eegay wiilka dhalinyarta uu soo u geystayna ninka dhalinyartii isaga halkaa u taala isaga iskala hadlaya anigu laakiin waxaan idin sheegay inta uu gabdhaha ka raali gelinayo inaanan halkan kaga hadhaynin social media-na ama uu iskaga bixi ya ama buuq qaameeyn buu ku jiri maalinba buuq baa dhinac kaga soo furay